Soomaaliya markii uu dhaco dayac amni mid caafimaad mid waxbarasho ama dayac kale wuxuu doonaba ha ahaadee lama helo ama lama arko mas'uul iscasila hadduu ahaan lahaa madaxweyne ra'iisul wasaare wasiir gudoomiye gobol taliye ciidan duq magaalo wuxuu doonaba ha ahaado iskada iscasilaade mararka qaybtood waxaaba adkaataba inay ka hadlaan ama la helaba cid mas'uuliyadaasi qaada haddaba caalamka waxa ka dhaca wax ka duwan arrintaas oo dad badan qaybtood ay la yaabayaan sida warbixintan soo socota markaad dhamaysatid qaybta commentiga ama falcelinta aragtidaada nala wada ku aadan waxa keenay kala duwanaanshaha intaas le'eg wasiirka caafimaadka ee dalka Portugal haweeneyda lagu magacaabo Marita Temido ayaa xilka iska casishay saacado kadib markii ay soo bixeen warar sheegaya inay dhimatay haweeney xaabile ahayd oo dalkaasi dalxiis u joogtay kadib markii laga soo celiyay qaybta haweenku ku umulaan ee isbitaal ku yaala magaalada Lisbon haweeneydani oo 34 sano jir ahayd oo dhalatay dalka Hindiya ayaa sida la sheegay wadnuhu istaagay xilli marbar la geynayay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Lisbon arintani ayaa timid xilli ay soo bixeen dhacdooyin isxigxigay oo ka dhacay isbitaalada dalkaasi kuwa oo loo aanaynayo shaqaale la'aanta ka jirta qaybaha haweenku ku umulaan ee guud ahaanba isbitaalada dalka Portugal wasiirka iscasilay ayaa wasaaradda caafimaadka madax ka ahayd tan iyo sanadkii 2018 waxaana lagu amaanay sidii ay u maareysay masiibadii cudurkii COVID-19 hase yeeshee shalay oo talaado ahayd ayaa dawladdu waxay bayaan ku sheegtay in wasiir Temido ay xaqiijisatay inaysan hadda u muuqan sabab ay xilkaasi ku sii hayn karto ra'iisul wasaaraha dalka Portugal Antonio Costa ayaa sheegay in geerida haweeneydaasi xaamilada ahayd ay tahay arrinta ku cadaadisay wasiirkii caafimaadku in ay iscasisho sida ay sheegtay wakaaladda wararka Portugal ee la yiraahdo Lusa arrintani ayaa timid xilli dawladda dalkaasi lagu dhaliilayo sida ay u maareysay shaqaale yaraanta ka jirta xarumaha haweenku ku umulaan iyadoo ay si ku meel gaarana u xirtay qaar ka mid ah xarumihii caafimaadka ee dalkaasi arrintaas oo ku sababtay haweenka uurka leh inay khatar nafeed la kulmaan inta ay ku daba wareegayaan isbitaalada kala gedisan ee dalkaasi ku yaala warbaahinta maxalliga ee dalkaasi ayaa sheegtay in haweeneyda dalxiiska ahayd ee dalkaasi joogtay ee uurka lahayd ay dhimatay markii laga soo wareejiyay isbitaalka Santa Maria ee magaalada Lisbon oo ah kan ugu weyn dalkaasi Portugal sababtoo ah waxa xilligaasi buuxay qaybta dhalmada isbitaalkaasi ilmihii uurkeeda ku jiray ayaa la soo badbaadiyay isagoo caafimaad qaba kadib markii qalliin degdeg ah lagu sameeyay meydka haweeneydaasi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi durbaba waxa ay bilaabeen baaritaan ku saabsan sababta keentay geerida haweeneydaasi xirnaanshaha qaar ka mid ah qaybaha dhalmada ee isbitaalada ku yaala dalkaas ayaa horseeday in ay buux dhaafaan qolalka ay ku nastaan hooyadu marka ay umusho iyo dhallaankeeduba iyadoo xisbiyada mucaaradka iyo dhaqaatiirta iyo sidoo kale kalkaaliyaasha caafimaadkuba ay eeda dusha u saareen wasiirka hore ee caafimaadka isagoo la hadlayay warbaahinta maxalliga ee RTV ayaa gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Portugal waxa uu sheegay in wasiirka caafimaadku ay shaqada isaga tagtay sababtoo ah buu yiri ma aysan heli karin qaab kale oo ay ku xalliso dhibaatada haatan taagan waxaase dhanka kale uu amaanay waxqabadkeedii hore intii ay xilkaasi wasiirka caafimaadka dalkaasi haysay hase yeeshee gudoomiyaha ururka caafimaadka dadweynaha ee waddankaasi Portugal waxa uu sheegay in marnaba uusan filayn inay iscasisho wasiirka caafimaadku wuxuuna sheegay in uu la yaabay inay shaqada ka tagtay iyadoo ay haatan jiraan dhibaatooyin ba'an oo dhinaca caafimaadka ah